weligaa qof ma weydiisa xaaladiisa oo ma kugu jawaabay xaaladeeda waa bariga dhexe oo ma is weydiisay muxuu uga jeedaa xaaladeeda waa bariga dhexe bariga dhexe waa meesha adduunka ugu qalalasaha badan uguna deganaanshiyaha yar daqiiqad walbana uu dagaal weyne ka qarxi karo waxaan muuqaalkan idinkula wadaagayaa dhowr qodob oo sabab u ah dagaalada joogtada ah ee bariga dhexe ugu horrayn kheyraadka dabiiciga ah gaar ahaan shidaalka ayaa ka mid ah sababaha ugu waaweyn bariga dhexe waxa uu leeyahay kheyraadka shidaal ee ugu badan dunida tani waxay keentay in dalal badan gaar ahaan kuwa reer galbeedka ay faragelin joogtaha ku hayaan waddamada bariga dhexe shidaalku waxa uu qaar ka mid ah waddamada bariga dhexe ka dhigay kuwo hodan ah taas kasoo horjeedkeedana waxay u adeegsadaan hub ahaan tusaale ahaan boqor faysalkii sacuudiga waxa uu sanadkii uu joojiyey shidaalkii loo dhoofin jiray waddamada taageerada siyaasadeed muujiyey israa'iil si uu cadaadis ugu saaro waddamadaas taas waxay waddamadii reer galbeedka gaar ahaan maraykanka ku keentay dhibaatooyin dhaqaale oo aad u waaweyn taasoo bariga dhexe ku abuurtay faragelin caalami ah oo joogto ah siiba dalka maraykanka si uu danihiisa dhinaca shidaalka u ilaashado caqabadda labaad waa israa'iil oo ah wasal xaaraan ah oo ay reer galbeedka ku beereen bariga dhexe israa'iil iyo waddamada carabtu waxay wada galeen dagaalo dhowr ah oo ugu caansan yahay dagaalkii 6 maalmood oo yuhuuddu weerar dhanka ceelka ah ku qaadeen waddamada siiriya lubnaan iyo masar waxayna dagaalka ku qabsadeen dhul ballaaran sida buuraleyda Golan Heights oo ay Syria ka qabsatay iyo Sinai oo ay Masar ka qabsatay sidoo kale waxay isku ballaarisay daanta galbeed sidoo kale waxaynu la soconnaa xasuuqa baan ee ka wado Gaza waxaa kaloo ay weerar ka fulisaa Lubnaan, Iiraan iyo Yemen tanina waxay bariga dhexe ka dhigaysaa mid xaaladiisu aad u cakiran tahay